nin aanan jeclayn oo aanan doonayn ayaan guursaday si aan iskaga maydho ceebo anshaxumo ah oo uu ii geystay wiil igu hor ceebayay bulshada Boorame xarunta gobolka Awdal ee galbeedka Somaliland. wiilkan ayaa ka faa'iidaystay jacaylka xad-dhaafka ayaan u qabay anigoo 15 jir ayuu noloshayda ku ciyaaray reerkaygiina igu hor ceebayay. haddaba qisada gabadhan ayaynu barnaamijkeena maanta aynu ku dahqaadaynaa. ha yeeshee daawado intaynan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahay subscribe sa asxaabtaada la wadaag kusoo dhawaada barnaamijka. nafta muuxisigista nacma isjecelista waxaadna wilaysiyo naquma kuntamaya inaguna nasiibkay makunaa xidnoona. gabadhan ayaa lagu magacaabaa Xaliimo. waxay ku dhalatay baadiyaha gobolka Awdal ee magaalada Boorame ee galbeedka Somaliland. waxay ku dhalatay qoys reer guuraa iyadoo gabadh yara ayay timi magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal si ay wax uga barato una shaqaysato qoyskeedana ay u kaafiso. iyadoo 15 jir gabadhani ayay timi Boorame balse wixii ay ku taamaysay ee waxbarasho shaqo fiican intaba ay rabtay kama aysan uga suuro gelin magaalada Boorame. kadib Xaliimo ayaa ku fakartay bal inay iska guursato oo ay noqoto marwo meel degan oo nolosheeda uu ninkeedu qabo intay dhex dalan baabiyi lahayd Boorame dhexdeeda. qoyskeedu waa reer baadiye ku nool baadiyaha Boorame. waxay isbarteen wiilkaas ay muddo xidhiidh lahaayeen. Xaliimo ayaa waxay tiri wiilkaas ayaan is aroosnay sanadii 2017. wiilkaasi ma ahayn wiil aan ka filayay inuu ila dhaqmi doono si naxariis darro. waxa uu dayacay noloshaydii ma uusan ka soo bixin waajibkii Ilaahay saaray. guri eedadiis degan tahay ayuu qoliga dajiyay aad u yar. qol ayaa laga siiyay bay tiri balse qoyskiisa ayaa igu noqday bahalo nolosha igu ciqaabay. isagu dan iyo raatoona kama lahayn dhibtay haysta. isagu si raalli ayuu ka ahaa. qol ayaa laga siiyay eedadiis guriga ayay igu ciqaabtay. jikada ayay ii diidi jirtay inaan wax ku karsado. biyaha qasabada ayay iga xiri jirtay. gabadheer ayaan u dhalay bay tiri. ninkaasi gabadhaasi yar xitaa way igu qadarin waayeen qoyskiisu iyo reerka iyo faamiliga uu ka dhashay isagu. gabadhayda oo bilo yar jirta ayaan go'aansaday bay tiri inaan isaga tago oo aan gurigan baana ku noolaan. gurigan lay diidayo biyaha jikada laygu ciqaabayo inaan xitaa jikada cunto ku karsado lay diidayo. qashinka wax walba albaabkayga hortiisa ayaa la keenaa. waa orodoo naga tago waa iska cad. waan ka tagay bay tiri gurigii. ciqaabta ee nolosha dulmiga ah ay ka jirtay. xaafad kale ayaan tegay kadibna qol ayaan ka kiraystay ayay tiri Xaliimo. kadib waxaan go'aansaday inaan shaqaysto oo aan ilmahayga korsado. ninkan aan gabadha u dhalay ayaa cidiisii ama faamiligiisii guriga ay yimaadeen. faamiligiisii xumaa ee caadadiis iyo aabihii iyo walaalihii ayaa guriga iyaga yimi. aabaha ayay u tageen. gabadhii lanoo soo celiyay ayaa doonaynaa ayay ku yidhaahdeen oo ay dib ugu laabato. aabaha ayaa ii yimi oo damcay inuu gurigaasi igu celiyay qoyskaygii. waan diiday dhibtii rafaadkii iyo wixii aan kala kulmi jiray ayaan aabahay u sheegay. aabahay waxa uu yiri gurigaasi ku laabo. ma ku laabanayo ayaan ku iri haddii uu ninkani meel la degayo ha ila dego oo qoys meel degan aan noqono. haddii kale uu leeyahay gurigaasi ku laabo anigu kuma jiro mana ku laabanayo ayaan ku iri aabahay. aabahay sidaas ayuu ugu sheegay qoyskiisa. waxayna ku yiraahdeen haddaanay gurigaasi aanay tegayn annaga way naga fasaxan tahay. waan diiday bay tireen gurigaasi ku laabto. wax walba aan gurigaasi kala kulmaynayo silic iyo dabxumadii aan ku noolaa ayaan u sheegay faamiligiisa iyo faamiligayga. qoyskii awalba aan jeclayn dan iyo raatoona iga lahayn
ayuu ii raacay. waxay qoyskaygu u sheegeen haddaanay qolkaa eedadiis ku laabanayn gabadhan annagu kuma jirno. kadibna warqadaydii ayay siiyeen oo way fureen oo warqadaydii ayaan ka qaatay. waxaa noqda bay tiri hooyo single mother ah. noloshayda nolosha cunugtayda aniga ayay noqotay inaan kafaalo qaado. xaliimo oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay inay awoodi weyday qolkii kirada, caanaha ilmaha yar iyo xafaayadii ilmahan yar. wuxuu igu taraa ma jirto ilmahan yar. maalinkii furay ayaa iigu dambeysay. kadib ayaan meherad shaah ka furtay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal. meherad shaaha lagu kariyo. waxaan waayay inantan yar. meherada shaaha intaan joogo ee aan shaqaysanayo cid ilmahan yar iga sii haysta. duruuftu waxay igu khasabtay bay tiri Xaliimo inaan ilmaha yar ee sanad ku dhawaadka ah jira aan keeno maqaaxida shaaha. danta ayaa igu kaliftay bay tiri. aroortii ayaan la soo kalihi jiray cunugta, habeenkiina waan la caraabi jiray bay tiri. xaliimo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri iyadoo noloshaydu ay sidaas ay tahay ayaan isku baranay maqaaxida shaaha wiilkaasoo noloshayda ku ciyaari doona. waa wiil aad u qurux badan bay tiri. wuxuu bilowgii ii muujiyey kalkacayl, jacayl xad dhaaf ah iyo damqasho dheeri ah. waxaan ahaa gabadh markaasi 16 sano jir ah. wax kastoo uu dhaho maan ka diidi jirin oo waan aqbali jiray bay tiri. waxaan u qaaday jacayl xad dhaaf ah. muddo ayaanu ahayn sheeko wadaag. waxaan ku heshiinay inaan isguursano. reerkaygu xitaa way ogaayeen inaan wiilkan xiriir jacayl u naga dhaxeeyo. aniga eedaday gurigeeda ayaanu marmar tegi jirnay oo ku sheekaysan jirnay bay tiri. maadaama aanu jaanis isku helin inta aan joogo meherada oo aan ka shaqaynayo guriga eedaday ayaan ku sheekaysan jirnay ayay tiri gabadhani Xaliimo. wiilkii waxaanu muddo sheekaysanaba waxaanu isla gaadhnay inaan isguursano. waanu ku heshiinay guurkaasi. haddaba jabba waa ka dambeeye. aabbahay iyo faamigaygii waxay ka soo carareen oo ay ka soo qaxeen baadiyaha Boorama oo ay markii hore ay deganaayeen oo ay ku noolaayeen. kadib markii wiil walaalkay ah bay tiri uu dilay nin aanu isku qabiil ahayn oo qoyskiisa aanu deris muddo dheer aan ku ahayn baadiyaha Boorama. walaalka ayaa rasaas ku furay, ninkaasina waa u dhintay. colaad labada reer iyo godob soo kala dhex gashay kadib reerkaygii iyo faamigaygii, aabbahay, hooyaday, walaalahay waxay soo galeen gudaha Boorama. reerkaygii Boorama ayay soo galeen. noloshii reerkayga, ilmahayga aniga ayay dushayga saarantay ayay tiri. aabbahay oo kuuli ama qandiwale ka ahaa Boorama mooye ayaa marmar iga qaadi jiray culayska qoyska. Xaliimo qisadeeda noo sii wada ayaa tiri wiilkii aanu maqaaxida isku baranay jacaylka dhabta ahaan u qaaday ayaa noloshaydii ku ciyaaray bay tiri. wuu qarribay bay tiri noloshaydii. ceeb ayuu iga saaray Boorama oo dhan ayaa aniga hadal haysa. labadii gabdhood oo isku yimaadaba aniga ayay soo hadal qaadaan. wuxuu dhahay qoyskayga u sheeg waan ku soo doonanayaa. waa meesha uu dhibaatada iyo jabku kala kulmi doonto gabadhani. markay guurku heshiiyeen ayuu ku yiri orada u sheeg qoyskaaga inaan kaa soo doonanayo. waan u sheegay aniguna, balse aabbahay ayaa yiri gabadhay jooji, wiil inaan ku siin doono ayaan kuu sheegay. wiilkaasi aan hore u diiday anigu. wiilkaasi ayaa ahaa injineer guryaha ka dhisa Boorama. wiilkaasi ayaan diiday bay tiri. waanuna islaynay aabbahay oo waxaan ku yiri ninkan ayaan anigu doonayaa. aabbahay canaan dheer iyo dood dheer iyo qaylo badan kadib aabbahay waxaan u sheegay in wiil uu isbuucan uu soo doonan doono. wiilkii ayaana u sheegay. aabbahay waa uu gartay wiilkan. waa yahay buu dhahay, waana qanciyey. wuxuu dhahay aabbahay ii keen wiilkaas aad doonayso, waan ku siinayaa waana kugu dari doonaa haddii aad wiilkaas dooratay adigu. haddaba jabba waa ka dambeeye.
ballantii u qabsaday inuu aabbahayga soo doonan doono ayaa waxaa dhacday in ballankii ay ka dhiman tahay 3 maalin oo keliya oo qoyskaygii oo dhan ay u diyaar garoobeen. wuu la baxsaday gabadh kale oo uu la aaday baadiyaha Boorama. maalinkii ballanta ayaana gabadhaasi loo meheriyay. waan wacay moobilka ma iga qaban, balse saaxiibkiis ayaan wacay oo i dhahay hambalyo markii uu telefoonkaasi iga qabtay. maxaa dhacay ayaan ku dhahay. Suhayb waa u aroosay. naxdin lugaha ayaa i gariiray. waan jareeyay bay tiri oo hin ayaan indhahayga ka qubanaysay. wiilkii saaxiibkiis ayaan dhahay iigu dhiib, ma kula jooga isagoo hadda? haa ayuu dhahay, waabay ag fadhiyaa. wuxuu dhahay gabadh yahay waan guursaday, ani gabadh single mother ah, daafaduma hayo ee calafkaaga qaad. war maxaad beenta igu sheegtay? war maxaa sidaa igu gashay? qoyskayga reerkayga oo dhan way ogyihiin, xitaa magaalada waa laga wada ogyahay inaad soo doonanaysay oo xiriir jacayl inaga dhexeeyay. maxaad iigu ceebaysay reerkayga iyo bulshadaba? aday kuu taallaa buu dhahay. ani waan guursaday ee dhagaha iga bax gabadh yahay. wuuna igu jaray moobeelka. waan ooyay bay tiri oohin iyo cadho ayaan magaaladaba ka baxay bay tiri. dooxa Boorame ayaan maalin dhan joogay oo ku ooyayay. aabbahay wuu ogaaday hambalyadii arooska ee ninkii aan u sheegay inuu soo doonan lahaa. aabbahay waa xanaaqay waana uu garaacay bay tiri isagoo dhirbaaxay la dhacay. isagoo cadhaysan ayuu habaar igaga tegay bay tiri aabbahay. magaaladii oo dhan ee Boorama aniga ayaa laygu sheekaysanayay. ceeb gabadhii laga noqday, wixii lagu nacay qabtaa, wixii ninkii hore ku soo furay ilmaha u dhashay ayay qabtaa. waxaas ayaa magaaladii la isla dhex marayaa ayay tiri. xaafadiiba waa ka guuray bay tiri. guri ayaan isku soo xidhay oo xaafad kale ah. waxaan gaaray heer xitaa aan damcay inaan sun cabo. cadhadii iyo ciilkii ninkaasi i baday ayaan wiil meherada aan isku naqaanay i dhahay waan ku rabaa, aan ku guursado. ayuu iska keeyay. haye ayaan dhahay aniguba hadalba kama gelin. wiilkii ayaanu isguursanay weliba si yaroo aada u fudud oo easya. wiilka ma jecli bay tiri. wiilka ma jecli maaha wiilaan doonayay inaan nolol la wadaago, maaha wiilaan rabo inaan nolosha la sii qaybsado, maaha wiilaan nolol la wadaagi karo. keliya waxaan u guursaday inaan isku maydho oo keliya ceebtan i gaadhay oo loo dhaho isna wuu guursaday iyana waa guursatay. hadda wiilkii ma jecli, ma doonayo, ma rabo inaan nolol la sii qaato. farxad ma ku dareemayo agtiisa. waxaan doonayaa bay tidhi sida aan ninkan aan iskaga furi lahaa. wax ceeb ah iyo dhibaato ah male oo aan ku dhaho waan kugu nacay, balse ninkan agtiisa siifad ayaan ku dareemayaa bay tiri. maxaan sameeyaa? fadlan tala i siiya. haddaan bay tiri xitaa xumaan aanu lahayn aanu sameeyo oo iskaga tago, waxaa lay dhahayaa naagtan cillado xunxun oo waaliya bay leedahay oo raggu ku furayaan oo kaga tegayaan. soomaalida weliba dumarka soomaalida ayaa ugu xun bay tiri oo ceebahayga dhan dhegaha iyaga garaacaya oo bulshada kula dhex wareegaya. maxaan sameeyaa? fadlan talay siiya. ninkan aan uga tago kuna asturmayo oo bulshada agteyda aan ammaan aan kaga helayo. ninkan inaan isku midho kaliya ayaan doonay inaan guursado oo ceebtaasi iyo hadalhayntaasi bulshada Boorama aan uga nasto. aabbahayna uu bal igu duceeyo oo dhaho way guursatay, isna wuu guursaday oo aabbahay uu xitaa meheradaha u fadhiisto oo u kaftamo. waayo xitaa ceebta aabbahay ayaa lagu dacaydaya. gabadhaadii la nacay, gabadhaadii maxaa looga tegay, maxay tahay cilladaha looga tegay, waxaasi oo dhan oo aabbahay ayaa xitaa guriga ka bixi waayay bay tiri. maxaad u malaynaysaa aniga? sidaasi laajligeed ayaa ninkan u guursaday oo aan u raacay.
ninkan ma doonayo, ma rabo nin aan doonayo inaan nolol la sii qaato. siifada ayaan agtiisa ka dareemayaa. sidee iskaga furaa? maxaan u sameeyaa? tala isiiyo si aan bulshadana uga badbaado, ninkana aan iskaga tago oo aan u shaqaysto, waxna u barto, ilmahayga yarra aan u korsado. waxay tidhi xitaabay tidhi gabadhaydii yarayd ee aan dhalay waa layga qaatay bay tidhi. eedadiis ayaa iga qaadatay ninkii hore aan u dhalay. markii hore xitaabay tidhi waan u tegtegi jiray, waan soo boqon jiray. gabadhii yar xitaa inaan maalin ama 2 habeen 3 habeen soo haysto waa lay diiday bay tidhi, oo laymaba ogolaba. cunugtaydii ma hayo. jacaylkayga aan jeclaay aan doonayay ee intii aan noolaan jacayl u qaadayna waa kaa noloshayda ku ciyaaray. cadhadii ciilkii ayaana ninkan kale aan u guursaday, ninkan aan siifada ku dareemayo. haddaba daawada gabadhan tala sii, fadlan ra'yigaaga commentiga ugu reeb, talo walaalnimo sii. ninkanay siifada ku dareemaysay aanay doonayn inay isku maydhown ayay rabtay, sidai isaga furi lahayd iyo inay bulshadaasi ka badbaado ceebaheeda ayay doonaysaa in tala laga siiyo. xitaa boorama kama tegi karo bay tiri, oo horeerkaygii iyo faamigaygii oo dhan ayaan il dhaqaale u ahay. gabadhan waxay ku nooshahay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ee galbeedka somalilan. qisadan ayay xalina la soo wadaagtay. fadlan ra'yiga commentiga ku sii sidee ninkaasi isaga fur lahayd ay siifada ay ku dareemayso aanay doonayn. qofku waxaanu doonayn oo aanu jeclayn iyo qof nolosha aanu rabin inuu la sii qaato inuu la sii noolaadana maaha. ruuxantii ma jeclayn inuu qoys burburo, balse gabadhan talo walaalnimo islaamnimo aad gordholaasha ayaad siin lahayd. fadlan sii oo qaybta commentiga ugu reeb, muuqaalkana lay garee.